madaxweyne hore Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay khilaafka ka dhaxaloosan gudaha xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kula rasmi ah la qaatay guddiga uu magacaabay wax ka qabashada xaaladii ka taagneyd magaalada Boorama qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku daawan doontaan haddii Rabbi raali ka noqdo wararkeena oo aad ka daawanaysaan barta Golden Media YouTube haddii warkani ku soo gaadho waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe noo tiraahdo madaxweyne hore Muuse Biixi Cabdi oo caawa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka dhaxaloosan gudaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in xaaladda xisbiga kulmiye ay haatan u baahan tahay in laga odayeeyo isla markaana uu isku xil saari doono sidii uu xaaladaasi wax uga qaban lahaa waxa uu Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay labada garab ee xisbiga waqtigan u kala fadhiyo inay xaaladda dejiyaan isla markaana mid kasta ay halka uu joogo uu ku sugnaado shirarka lagu baaqayna la joojiyo waxa uu sidoo kale Muuse Biixi Cabdi sheegay in wixii arrimo sharci ah lagu dhameyn doono sifo sharci wixii kalena habkii wada hadalka ee walba lagu yaqaanay lagu dhameystiri doono hadalka madaxweyne hore Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo beegantay kadib markii maanta gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Maxamuud Jaamac Warfa oo ku magac dheer wadku uu ku baaqay shir degdeg oo la isugu yimaado xataa Muuse Biixi laftiisa uu ku casuumay shirkaasi kaas oo sheegay inuu ka dhici doono gudaha xisbiga kulmiye kadib uu yidhi markii ay lumiyeen isla markaana ay dhaceen hogaankii sare ee xisbiga kulmiye waxaanu sheegay Warfa inuu isagu yahay gudoomiyaha rasmiga ah ee xisbiga kulmiye sidoo kale isna waxa ka daba hadlay oo hadalka Warfa ka jawaabay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo sheegay in safi sharciga baalmarsan uu gudaha xisbiga khalkhal uga abuurayo gudoomiyaha golaha dhexe oo isagu sheegay in shaqada laga hakiyay waxa uu sheegay in wixii halka ka yimaada uu ka dambeeyo mas'uuliyadeedana uu qaadan doono gudoomiyaha golaha dhexe waxa uu laamaha amniga ugu baaqay in talaabo laga qaado fal kasta oo uu ku kaco gudoomiye Warfa maalinimadii sabtidii ayay ahayd markii gudoomiye Warfa shaqada laga hakiyay isla markaana uu Maxamed Kaahin sheegay inuu sharciga xisbiga ku gafay gudoomiye Warfa Maxamed Kaahin Axmed gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa lagu eedeeyay inaanu ka dabaalanayn xaaladdan siyaasadeed ee xisbigu galay oo ay la tagi doonaan mawjadaha siyaasadeed ee xisbigu dhex dabaalanayo Maxamed Kaahin Axmed ayaa loo arkaa inuu waqtigan ku jiro wax iska celin laakiin aanu xisbiga gudihiisa isku ururinaynin mas'uuliyiintiisa iyo guddiga sare ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaanu xisbigu intuu khilaafka ku guda jiray uu dhex dabaashay mawjado siyaasadeed oo sababay in qaar xisbiga laga eriyo qaarna loo magacaabo waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta la magacaabay gudoomiye Xinif oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe inkastoo booskaasi banaana haddana Xinif waxa loo arkaa nin aad u kala qaybinaya gudaha xisbiga taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa waxa ay sheegeen inaan waqtiga la sii eegan karin xisbiga kulmiye isla markaana uu xisbigu qaaday dhabihii ama wadadii ay ku dumeen xisbigii udub iyo xisbigii ucid oo labaduba ay isku daa xagga siyaasadda ka ahaayeen xisbiga kulmiye haddii aanay hirgelin gogasha uu ku baaqay madaxweyne hore Muuse Biixi Cabdi waxa iman karta in xisbigu uu sidaasi saaxadda siyaasadda ku macasalaameeyo isla markaana qolfoofkiisa u dambeeya ay sii dugsadaan inta u hadhay ee kala Maxamed Kaahin iyo Cabdicasiis Samaale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa waxa uu maanta kulan gaar ah la qaatay guddiga uu xil saaray inay wax ka qabtaan xaaladii ka taagneyd magaalada Boorama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wehelinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa kulankii ugu horeeyay la yeeshay guddiga heer qaran ee baadhista iyo qiimeynta dhacdadii ka dhacday gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama guddigan oo madaxweynuhu dhawaan u magacaabay ayaa waxa loo xil saaray inay sameeyaan baadhis qoto dheer qiimeyn mugle
talabixin ku wajahan xukuumadda oo la xidhiidha xalka ugu habboon ee ka soo baxa baadhista iyo qiimaynta. madaxweynuhu waxa uu guddigan Alle subxaanahu wa tacaala uga baryay inuu u fudaydiyo hawsha culus, isagoo kula dardaarmay in hawsha loo xil saaray ay u gutaan si mas'uuliyad leh, daahfuran oo daacadnimo leh, isla markaana ay si degdeg ah u soo diyaariyaan warbixin dhammaystiran oo ku salaysan xaqiiqada dhabta ah ee la xidhiidha dhacdadii dhowaan ka dhacday magaalada Boorama. waxaa xusid mudan in guddigan oo ka kooban 23 xubnood ay yihiin kuwa gebi ahaanba ka madax bannaan saamaynta iyo faragelin kasta oo ka baxsan waajibaadkooda qaran ee loo xil saaray, iyagoo warbixintooda iyo talabixintooda rasmiga ah muddo kooban ugu soo gudbin doona madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. waxaa xusid mudan in guddigan ay ka mid yihiin labadii madaxweyne ku-xigeen ee hore ee kala ahaa Cabdiraxmaan Saylici iyo Cabdiraxmaan Cali Faarax, waxaana warkan soo saartay madaxtooyada Somaliland.